kulanti wanaagsan dawadayaal kuna soo dhawaada barnaamijka wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya qodobadan maanta barnaamijkeena ku soo qaadi doonana waxaa kamid ah madaxweynaha dawladda federaalka ah ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo soo saaray amar culus kadib markii magaalada Muqdisho laga dareemay dhul boobkii ugu xooganaa xilli laga faa'iideysanayo inta ay xilalka ku kala wareegayaan labada madaxweyne natiijada kulan uu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud la qaatay gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaan idiin soo gudbin doonaa xog laga helay shakhsiga uu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud u magacaabayo ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya xilli uu si adag uga hadlay khilaafka soo kala dhex gala madaxweynaha iyo ra'iisul wasaarihiisa haddaba maxaa ka jira in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu magacaabayo shakhsi caan ah qodobada kale waxaa kamid ah Axmed Madoobe madaxweynaha maamulka Jubbaland oo Muqdisho ka wada abaabul uu kula wareegayo gobolka Gado oo ay joogaan ciidamo uu horay halkaas u geeyay madaxweyne Farmaajo iyo siyaasiyiinta gobolka Gado oo si weyn kaga hor yimid qorshaha uu wado Axmed Madoobe shirkadda diyaaradaha Turkish Airlines-na waxa ay sabab la yaab leh u joojisay duulimaadyadii ay ku tagi jirtay garoonka diyaaradaha aadan cad ee magaalada Muqdisho iyo ra'iisul wasaare Roble oo wada kulamo u muuqda inuu sii baneynayo xafiiska qodobadaas ayaan ku faahfaahin doonaa barnaamijka insha Allah waana subax khamiisa 19 bisha shanaad ee May sanada 2022 barnaamijkan si share gareeya oo u sii gudbiya saaxiibadeena kale ee kugu jira baraha bulshada aad iyo aad u mahadsantihiin aynu ku bilowno wararkeena madaxweynaha dawladda federaalka ah ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu soo saaray amar culus oo ku saabsan dhul boobka laga dareemayo magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waxa uuna fariin adag ka soo saaray arintaasi kadib markii uu la kulmay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho gudoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Maxamed Cumar Filish ayaa wada qorshii ugu dambeeyay ee markaasi lagu cabirayo dhulka danta guud ee magaalada Muqdisho ka hor inta aanu xukunka la wareegin madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ciidamada maamulka degmada Dharkeenle ayaa howlgal burburin ah labadii maalmood ee tagay ka waday suuqyaraha degmada Dharkeenle iyadoo la sheegay in qorshuhu yahay in dhulka uu ku fadhiyo suuqyaraha la baneeyo kadibna la cabiro oo la iibiyo waxaa la burburiyay kawaankii suuqyaraha iyo qaybo kamid ah guryo ay degan yihiin dadweyne waxaana arintan ka hor yimid dadka halkaasi degan oo ciidamo taageersan u yeertay kadibna halkaasi ka saaray ciidamadii degmada ee burburinta waday dadweynaha halkaasi degan ayaa madaxweynaha cusub ka dalbaday in uu arintan soo farageliyo iyadoo la sheegay in maamulka degmada Dharkeenle ee gobolka Banaadir iyo dawladdii markaasi dhacday ay boobayaan dhulkooda dhinaca kale Cumar Finish oo ay weheliyeen xildhibaanada beeshiisa iyo nabadoonka ayaa shalay markaasi waxa uu kulan la qaatay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxaana la sheegay in ujeedkiisu yahay in uu xilka gudoomiyaha gobolka Banaadir sii joogo waxaana madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu si adag kala hadlay arinta ku saabsan dhul boobka la sheegayo in markaasi laga dareemayo magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in marnaba aysan suurtagal ahayn in la boobo dhulka hantida dadka amaba hantida guud ee dadweynaha waxa uu ka dalbaday in arintaasi Cumar Finish uu ka digtoonaado Cumar Finish ayaa aad ula shaqeynayay madaxweynihii hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ay markaasi si aad isku fahamsanayeen hadda waxaa la qorsheynayaa in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu si degdeg ah xilka kula wareego inta xilalka ay ku kala wareegayaan labada madaxweyne ee Farmaajo iyo Xasan Sheekh Maxamuud ayay ka faa'iideysanayaan dadka markaasi arintaasi shaqada ku leh ama maamulkii hore madaxweyne Farmaajo ee la shaqeynayay Cumar Finish ayaa doonaya inuu markaasi xilka sii joogo waxaana uu markaasi u geeyay nabadoonka guud ee beelaha markaasi mudulood dhika la yiraahdo Xasan Sheekh Maxamuud si uu arintaasi ogala hadlo lama oga talaabada uu markaasi madaxweynaha cusub ka qaadi doono dhulka danta guud ee madaxda gobolka Banaadir iyo degmooyinka ay boobkii ugu dambeeyay ku wadaan xilligan markaasi xasaasiga ah hore inta badan degmooyinka gobolka Banaadir waxay guryaha si hordhaca uga markaasi qaateen lacagtii canshuur sanadeedka ahayd oo iyadoo aan la gaarin waqtigeedii dadka markaasi lagu qasbay inay bixiyaan sabab la xiriirta in ay ogaayeen in Farmaajo uusan markaasi suurtagal ahayn in uu markaas soo laabto wararkeena kale haddii aynu sii fiirino madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Madoobe ayaa waxa uu markaasi magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ka wada abaabul xoog leh oo ku saabsan in gacantiisa dib loogu soo celiyo gobolka Gado wararka la helayo ayaa waxay sheegayaan in Axmed Madoobe uu kulamo aan caadi ahayn la qaadanayay saacadii la soo dhaafay madaxweynaha cusub ee dawladda federaalka ah ee Soomaaliya
mudane xasan sheekh maxamuud isagoo kala hadlayey sidii markaasi arrintaas loo xalin lahaa islamarkaana madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu arrintaasi uga shaqayn lahaa. wasiirkiisa ee warfaafinta ayaa waxa uu sheegay in madaxweynaha cusub ay ka dalbanayaan in ciidamada halkaasi horey uu geeyey farmaajo laga soo saaro islamarkaana dib u heshiisiin loo sameeyo dadka gobolka Gedo iyo maamulka Jubbaland. Axmed Madoobe ayaa arrintan waxa uu arkaa guul weyn iyo fursad maadaama meesha uu ka baxay madaxweyne farmaajo oo caqabad ku ahaa gobolka Gedo iyo siyaasadii uu markaasi ku wajahayay ninka la yiraahdo Axmed Madoobe. Axmed Madoobe waxa uu wali ku sugan yahay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waxa uu doonayaa in arrintaasi si wanaagsan uga la xaajoodo madaxweyne xasan sheekh maxamuud. inkastoo madaxweyne xasan sheekh maxamuud uusan si rasmi ah u shaacinin waxa uu markaasi ka yeelayo arrinta gobolka Gedo, haddana waa caqabad markaasi ka mid ah caqabadaha horyaala madaxweynaha cusub ee Soomaaliya. dhinaca kale siyaasiyiinta gobolka Gedo oo iyaguna ka soo jawaabay arrinta ay markaasi soo bandhigeen maamulka Jubbaland ee ah in gobolka Gedo lagu soo celiyo gacanta Axmed Madoobe waxa ay si weyn kaga hor yimaadeen qorshahaas, waxayna sheegeen in marnaba aan la tusi karin Axmed Madoobe. waxa ay sheegeen in gobolka Gedo iyo Kismaayo ay iyagu mar waliba kala madax banaanayeen oo ay sidaan isku haysteen laga soo bilaabo dowladii Sheekh Shariif tii madaxweyne xasan sheekh maxamuud ee 2012 midii farmaajo, haddana ay xaaladdu sidaasi tahay. waxa ay sheegeen inay ogol yihiin madaxweynaha cusub xasan sheekh maxamuud islamarkaana ay ka dalbanayaan in uu la yimaado arrimo lagu xalli karo xiisada taagan, iyagoo sheegay waliba in madaxweynuhu uu yahay xog ogaal wax badan markaasi la socda. وهجاج xogo la helayo ayaa daawadayaal waxa ay sheegayaan in madaxweynaha cusub ee Soomaaliya xasan sheekh maxamuud ay suurtagal noqon karto in uu magacaabo shakhsi caan ah isla markaana uu magacaabo ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya. wararka ayaa sheegaya in wajiyada suurtagalka ay tahay hore loo yaqaano uu magacaabi karo xasan sheekh maxamuud uu markaasi qayb ka yahay ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya ninka la yiraahdo Cabdiweli Maxamed Cali Gaas. inkastoo warkan uu yahay mid aanan rasmi ahayn isla markaana aanan la xaqiijin, ayaa haddana dadka qaar isla dhex marayaan in xasan sheekh ay suurtagal noqon karto in uu soo magacaabo qof markaasi caan ah. xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu geesta kale markaasi ka hadlay waxa uu ka yeelayo khilaafka soo kala dhex gala madaxweynaha iyo sidoo kale ra'iisul wasaaraha. xasan sheekh maxamuud oo dowladii uu hogaaminayay 2012 ay yeelatay 3 ra'iisul wasaare oo 2 uu xukunka ka tuuray kadib markii ay isku qabteen shaqada socota ee dowladda, ayaa sheegay in meesha uu dhibka ka jiro ay tahay dhanka dastuurka dalka oo weli markaasi qabya. waxa uu sheegay in tan iyo markii ay xornimada qaadatay Soomaaliya aysan jirin dowlad ay xukunka isla dhameysteen ra'iisul wasaaraha iyo sidoo kale madaxweynaha ayaa waxa uu dhinaca kale sheegay in hawsha markaasi ugu weyn ee xafiiska madaxweynaha ka bilaabata ay tahay soo magacaabidda ra'iisul wasaaraha. madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu ka hadlay waxyaabaha u qorshaysan dowladdiisa 100 maalmood ee ugu horeeyay, isagoo sheegay in markaasi amniga magaalada Muqdisho ay xoogga saari doonaan sidoo kalena ay wax badan arrimahaasi ka qaban doonaan. qaybaha dambe ayaanu isla soo gaarnay. shirkadda diyaaradaha Turkish Airlines ayaa shaacisay inay si ku meel gaar u joojisay duulimaadyadii ay ku imaan jirtay garoonka Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho. arrintan ayaa waxaa lagu shaaciyay qoraal kooban oo ay soo saartay shirkadda, waxaana joojinta safarada la ogeysiiyay dhammaan macaamiisha shirkadda. qoraalka waxaa lagu sheegay in sababta tallaabadan keentay ay tahay shidaalka diyaaradaha oo ka go'ay garoonka Aadan Cadde ee Muqdisho. arrintaas oo ah mid la yaab leh. waxaan idinla socodsiinaynaa in la hakiyay duulimaadyadii Turkish Airlines ee ka imaanayay Istanbul Muqdisho 19 May 19 May 22 May 23 May 25 May iyo 28 May 2022 sababo shidaalka diyaaradaha oo ka sii yaraanaya garoonka diyaaradaha Muqdisho ayaa lagu yiri qoraalka markaasi ka soo baxay shirkadda. weli dowladda Soomaaliya arrintan kama aysan hadleen. ugu dambeyntiina ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta ayaa waxa wada kulamo markaasi u muuqdo kuwa uu xafiiska ku banaynayo. ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa saacadii la soo dhaafay kulamo mahadcelina la qaadanayay
siyaasiyiin markaasi isugu jira Soomaali iyo sidoo kale ajaanib, waxaana kulamadii ugu dambeeyey oo markaasi la qaatay Midowga Afrika isagoo uga mahad celiyay kaalintii ay ku lahaayeen dardargelinta amniga doorashada. Ra'iisul Wasaare Roble ayaa la filayaa in toddobaadyada soo socda uu xafiiska baneeyo. Qodobkaas ayaa ugu dambeeyay warkeena tan iyo warkaan la mid ah intaanu dib ugu kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.